anigoo ah xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore gudoomiyaha xisbiga UPD maanta halkaa waxaan u miday inaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho midda koowaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen midda labaadna waa cambaareynayna carabada Soomaaliyeed inaan cadeyno dhacdadaasi dowladnimo raad kuma laha madaxweyne Sheekh Shariif madaxweynaha jamhuuriyadda xilli kumeelgaarka ay ka saaray dalka nin oday ah oo maxaan ku dhahay xushmad badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahay si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimana sax kuma aha iyo maxaan ku dhahay dowladnimo intaba sax kuma aha shalay ficilka airboortka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dowladnimana ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka 22aad ee dastuurka kumeelgaarka faqadiisa koobaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas'uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag naftiisa horay khatar ku soo geliyay oo ummadda dhexdeeda karaamo ku lahoo mudan in si gooda loo weynay waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaas dowladnimadaan jecelnahay qaanuunkaan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan u haynaa dalkani iyo meesha uu joogo inuu hore u socdo oo dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dowladnimo keenaynin ka dayimayno naf una maxaan ku yidhahdaa waxay una muxuu ahay jilcimayna ama ka aamusmayna cod dheeraan ku leenahay waxaasi khaladay ahayn waana khalad shalana khaladay ahayn maantana waa khalad berri hadday sii socdaanna waa khalad cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto u suurtagal tahay duulimaadyada hawada iyo hawada Soomaaliya waa garanaysaan 1995 UNISOM markay dalkan ka tagtay ayaa hawada Soomaaliyana la laalay maamulkeeda loo dhiibay hay'ad 30 sano ku dhawaad ayaa hadda hay'adaas gacanta ku haysa lacagta hawada laga qaaday hay'adaas qaado dadka Soomaalida wax weyn looguma qaban jirin uma madax banaaneen waxaan dadaal adag loo soo galay hawada sidii loo soo celin lahay oo maamulka Soomaaliya loo soo celin lahay wada xaajooyin badan laga galay dowlad goboleedyada raalli ka ahaa maxaan ku raadayay qaybaha kala duwan ee mujtamac bulshada dhammaan raalli ka ahayd in ay noo soo noqoto hawadeeda maamulkeeda taladeeda markii ugu horreysay soo noqotayna inay waxaas dhacaan waxay dib u keenayeen haddana un hawada farayna ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diidaya inay dhoofaan iyo kuwa maamuladooda iyo shacabkoodii iyo humanitariankoodii muxuu ahay gargaarkii loo fidinaya dadka la hor taagan yahay diyaaradu ma dhaqaaqan kara hawadu waa xiran tahay laleeyahay waa kuwii shalay cod dheer cod gaaban ku yiri maxaan ku idhahdaa hawadeena annagaa iskale ha naloo soo celiyo oo dowladdii maxaan ku idhahdaa dowladda Soomaaliya ku garab istaagtay dowladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa kasii horreysay shalay maantana way ka dambeynaysaa dad badana u soo istaagay in hawada waqti dheer iyo waddo dheerna waa qaadatay inta jeeroo loo safray Canada loo tegay xarunta ECAO loo tegay madaxda ECAO warqada iyo dacwo ay wax walba loo qoray si hawada waddo dheer ay soo martay maanta marka in ay dhaqanka noocaas oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinaya in la yiraahdo wax macquul ah oo maxaan ku ummadda Soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights ama xuquuqda asaasiga aan sheegayno oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku tahay ku xadgudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dowladdu inay indhaha kala qaado oo ay fahamto weli waxaan rabnaa dowladdeenu inay fahamto dalkani meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dowladnimo dhammaystiran maxaan ku idhahdaa xuquuqdeena qarannimo oo aan adduunyada ku lahayn inuu soo noqoto aqoonsi iyo ogolaanshiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aan ka wada helno laguma daawoobayo Soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukata laguma daawoobayo dhaqanka noocaana shalay dalkeena ku burburay dowladnimadeena ku burburtay maanta daawo inaan ka jirno oo dowladda muxuu ku xoogaysanaysa dowladda ku muuqanaysa wadaadna dowlad intaan ku xoog badan shalay waxaan wax la mid inta la timid dadku diideen war maanta waa soo kabanayna waa soo noqonayna wixii shalay dhaqanka xumaashada la dilay cudurkii shalay lagu dhacay maanta inaan haddana cudurkii aan doondoonanahay macno badan ma samaynayso arrinta waxaa soo hartay maamul goboleedyada dalkan nidaam federaal qaatay
لبكون يأفرتي شركة قدام بيدود له قبته البجاث اللي قبته أي ذاك الصومالي يسوع أبرادين نظام فدرالي إلا قاطع لبكون يلا بيه طبعا كونغرس كحمل له قبته دستور كهذا الجراء من الجار كانوا أنسحين ذاك كقيم قلي إرجدي الجمهورية الدولة ذاك الصومالي استجبت من ذي وحسوا أبرادين ذاك إنه نظام فدرالي إيش نظام كفدرال كوحكم لها تقابل حكومة ذاك كجي الدنيا ذاك كجي آية القرآن معه ولا بدل كرا ولا جبور كرا لكن سيدي الشرق وكل يبدو يكون دورتين على جبور كرا ذاك الصومالي إن سوستان يرادان فدرال كوانا أنفعي واي برا لكن أنا قاعد جعل يعني قاعد نحب يعني إلى قومية يعني أنا أودي كلنا يعني أودي كل ما قبل بيدل ما قبل وربيتان كدت كوكي مذي وحلوغن نقول كرا ولا نقول كرا لكن وحلوغن نقول كرا ربيتان كدتك إن أنت اللي سوي ماذا صومالي سوي ماذا فدرالك وأنا أنفعوا لكن قف هي حكومة مدنا بعيد كرا فدرالك من الدين كرا من هو استاي كرا ربيتان كشعبي واي وكوس ليسيا نظام كاسك بدنا على الصومالي اسمه سوي كذا صومالي صحافة أبي وقتل بوجود واحد دولة الجولات كاستقبلت الصوماليين للسكة يعني ولا ومحاطي هنا محيط ولا تهادين وركب باللم ليجري أولوف دو أيوة عن سدنا بدام كانوا كنسو ورص الصعدة ما تحيو ما نكون دعوني بقولك وبقول صحيح صوماليا ما أنت بقولك وبقول واحد صح من الجيران لكن وضع الإبر أهم كان ما في عن هذا المريض أدي واحد بدل موضوع قبصنا نظام فدراليزم في الأحداث اللي ما تحكي واحد بدلنا دستور بحديث كطبيعة هاجرة واحد بدلنا محمد رضاك الصومالي اللي كالدولار اسكو وصل له هاجر لكن ما هذا لو يدير كان هو بدل كان وما نعرف قرضين كان دبعتي واحد دولة نمدي تي قرن كونا سؤال جريسة تذكر دجاجة الدجاجة تشهدين والقضية واحد كقضيين وروح أنا كقضية سيدان سمع هن هلا توسي اللي يراد الله دحجر الله وحي وباهي وقرن إنسان أيوة دكتور درسية isu imaan kara iswarsan karina dadku inta isu yimaadeen iswarsadeen nidaam ka sameystay waxba ka dhiman haday wax ka dhiman yihiin in la dhameystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dawladuna ay fududeyso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu kantay walaalaysan laga shaqeeya laakiin sidaan ma aha iyo siyaabii bariyada way dhacayo dhan si sax ah oo maxaan ku raadayay dawladnimadeena saacidaysa ma marka nidaamka federaalka ah واسير مسلم حكم كدولة دولة وكباهك أو مال وكباهك لكن هدي أن كفكر إنه عسكري كبوليس قال له حتى كشقايلي يملك راس كمبوني كشقايلي يملك راس حسين كشقايلي هل كان حمر على جنب الدليل دولة ده حب الدرسه قبل أمور الصدع محمد إلى هذا بعض هاي رجوت أمور ليس أمام محمد هذا قندلة هو يقول سكجو أمور ليس أمام إيران أمور هل كان على جنب الدليل شكرا تاريخ سوى بوك صلى بوك صلى وحقوق الرأينا آخرنا معنا مثلا نسمي بوك نوريال وحقوق الرأينا آخرنا وحنا حقوق الرأينا مانت واي وحلو تاريخ مركا سكست نظام فدرال كان يقول كرا قاد بيسال عيون كرا لكن مرنا ما نعيشه دولة بدأ أن نقين الشرع وأن هبني وبدأ شيء على روح حقوق القوة المهم داوي دبلو ومن مكر يعني مركا لوكا تسون أريمها سالنا حصوها المركز ضد الصومالية أنا رأينا اللودة وإنتاس أو سقط توصل والدستور قبيع عليه أو محامك إلى هذا الشروع البدن كيدلك أو وحيد وهميسيني ضد كهرب ونقاجية لك كلاية وروح فضل وحي هرقنا جبسان هكو مشغول منه وحان كو يلا بك يسدح يعفر الشنع للمن هل يلا بك لما كدري كرتين فضل فضل أنا يقول الضرب ورمحان كرا دين عسى وضد نجت بتاع الآن ضدك لو كان لا يعني وإلى يمانت شرط شعب يصير مطمئن على قرني وعلى قرني يا برلمان كفدرال الكاك بدون كسر بدل وحي كدعي بيد أبو وحي كدعي قلنا له حدا كسر كسماعي وحي كدعي ما نوض مقاردا الشيء ضدك كل عاصمة جبول تسلع وطال ضدك إذا نوالا يجي دولقات تذكر الشقية دولة الكتشفة دولقات هي دولة جعيل أي قرار ضد المشلة وقالوا عليه ضد يعني لقد بدينا مرة وأقول هنا مركز وعلينا ضد المرجع لقد داعي إن النورادان أو دقاقان أو دريمان قبكود إنه كرجو هلو داعي مركي وحاس إيوايين شلوا اللي عوالة قرنيه
ما أنت اللي شغل عيبتك أوجاية وحمصنا يا قوري يقولي ولا ورمية ورميش شغل من أكرم وروح شغل ما أنفعان لكن وحول الله حدود اللي هنا وجانك وحنقول بالله منا كل الدردار منا ضبط إن أنا كوبي الميشي نظام كان فدراليزم يضبط الانتشارات وحوقية هاي اسمه يقول حيث إن اسمه عام كإيران ليس وحيابها ضبط يكون دوي دولة دماغ فدراليزم واسمه اسمه دع يحموك يجوكتك على إيران ليس أو قروا المقبوني ويران أنت جرك لما هو الحمصان هاي غير كمية من جرك حمصان تاي أنت اللي كان يقولون كسمايا بعد كده تمامه والآن آدم أنا الدولة إيه ما أنت أنا مجانك عين ضلال قدرنا قضيان قدرنا من السياسيين قدرنا وحكي صعد ماشي من حق هذا وحبضنا واقع قبل لكن الدولة ده كم دولة مدة هنا تسمع وحكي قضية دي وحلا صح لكن دولة مرة دبك شباب كسي شو بس دبك شباب كسي شو بس هو أنت هو كسي الإعراب أو كسي وحس وكذا إلى يوم الشارع هاي محوها هاي سوق وحاربنا لذا أنت سوى يعرفنا مقال لنا ما أنت الدولة دي المحل مؤمن كرا عرفتك الصومالية أنا عرفت عن قبل ولا واحد دولة اللي مؤمن كرا وصو يرانا يعني ما والله مستقبل حكومة إنه مؤمن ما والله حدود المؤمنات ذيك السورية أي دولة قد ما والله وصو يرانا ما والله وصو يرانا ما والله وصو يرانا دولة لماذا الشرعية دولة لماذا لو حب لها هاي حب أنت كسورية ضغط أي قبان والدولة يكون قبان وهجانك يكون قبان أنت بلارتها ووينتها أي حد أي لعبتها هاي شرعية ذك الدولة لماذا محوها هاي ذك الصومالي الدولة دي أيامك مركوحة والفضل عن كقبنا ولا عن كبوجنا تاسكنا معنا والصوت عيسو صيّر عنيسو ويسوي حسيس بقى النظر أنا هالحين وضدك إنه ما قد أحشق أفلقادين هايدا محمد هذا وحى أي دولة أي قبح الصوت هاي قرشات يوحي ما أنت شعب الصومالية إن أنا محوى مراحل علينا دقائق كلمة مهمة إن الله شر مثلا ويلشي إن أي ضد الدفاع يكون أنت شرع الضرر قال كل ميت كل ميت برنامج يلا أي تعذب إنه هم مرايس كره كل دعوة علينا أن داوي هو أصلا غيره دي أيجا أن محوى وحينا أيام مهمة دولته محيط وشق إلى وحسب حيط أكل هذا وآدي هذا مهمة إلى هذا هبل المرة قاعد كره هبل لما بيحكره هبل لما حض كره هبل لما يجي إلى هذا كان واحد ليان ودقائقيان والصحونيان محوى قانون كنظام أيوة إلالني مرنا أنا بحب أنه لا حاجة على بنات ولدنا أنا جالس أترى المقارنة فريسك بدنا أمرنا وحبنا أن محوى قريش عن سواء أقبلنا ما أنت دستور النار والبقعين دستور النار والبقعين وقبل ورن القبيلة لكن هذا لو عليه الشرع أسير قبل أسامكم غير مهم سأنا الذي عيبوا إيماننا أنه جومنا دولتي أن قبكين وحنا أنكين أن قابلنا سأنا أقنع إن ضكك اللي دولنا أقنعان شاء الله مركي ماشي اللي بدورت بالحونا لسوء إيماني نظام أمريكا دوكسن المنهج بارلمان كان عندي سؤال اسمه دورك بارلمان هل جو وديك ضدك قلوبته دي واحد إلى ليني يمحوها الرأي إن بدنوا ضدك سياسيين ضدك جوتا أو حين هذا مددي وقالوا إن هذا السيكور بمدد وحل مضر أنا إسكسي جونا أو مقدر واجب لك عندهم خبصة كتير يعدوا لي كتير وجه نقن كدولة لماذا الصوبان إلا إيراني تعرف هدول جرتان الدولة داني ففارها كم مقطع وإن الدستور كان احترام مهين الدستور كان داني احترام مهين تعرف كان احترام مهين هم شيء لنا إن تعرف هدول ما ضل ضمار وحياها هذا قارو لكن شيء جاي أيه وقت بدأ إسرائيل من الصومالية وكتم بيدي مش يطفق في متاج السوق مش بين ضد وكي مالين والرابطان كل أيوة كل شيء كذا الرابطان كل نفس السوق هو شيء دجالني وإذا ما له هيست ومدافع الردي أي مجال الجود ضل كتن جود هو شيء دجالني ومدافع الردي أي ما أنتم عليه وهذا هاي الدستور عن إيران والدستور هلو رقم والدستور هلا إيران ماذا شال واحد عيوين ما أنت إيران ما يدستور الرقم ما يعني عن وحيد معقول ما لاحظ شعب كما كي احترامان أي احترام جنة قانون كما كي دوران أي دور مهريان أي جنا الدورية
شعب هذه احترام ويان احترام هذيان قانون هذه دور ويان دور الحوار هذيان محمد كله عقدات كل علمية دولة الفدرال كأ يوجان كين حكومة يوم الحوينا وشعب وأي دورتين بقى سيدا أي وحكومة غير صح ما أهم وضلا سنة بدلان وضلا أي هايان مالحون يكون أماتا قردير كدقدا on laga soo noqon karin way aragnimo ulana waa soo joogna dalkan 30 sano dawlad la'aanta ayaan soo joogna wixii dhacay oo dhan shalay sida noogu muuqdaan weli ka jooga hadda ka maqleedeen dalka oo jooginina war annaga soo joogna wadadii lagu dhumay waa wadadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya marga iyo qabateynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku dhahay xorriyadda dadkana waa dul qaateen waxa ay maanta ku dul qaateen wax badan oo kamid ah looma dul qaadan insha Allah laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko laakiin wax walba xaday leeyahay xadkiya laga bixin rabaa ka bixinina oo dhibaato inta ka weeyaan inoo imaan dawladnimada taageersanahay dalku inuu dawlad yeeshaan rabnaa deganaanshiyahan rabnaa dal kale ma qabno baasboorro kale ma qabno daaro kale adduunya ku malihin meesha anaan ku dhaawno wax ku barano ka soo shaqeyno weli inaan joogno ka shaqeyno rabnaa laha jeclaa naga hayso meel anigu dalkaan ku dhumaado meel kaloo aadama aqaano ku bedesho marka meel kaloo aadalaho dalkaan nooga cayaari malaayiinta soomaalida dalkaan joogtana meel kale ma qabaan aday waxdaan meel kale qabtaaqiya ku jirtaayo laakiin dalkaan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaari karaama kuma isharaf kuma taarif kuma aqnayaanay kaa raacay oo weligeed aan kaa hari doonin aad iyo aad ayaan mar kale waxaan halka shara dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaa lagu sameeyey astaan iyo fariinay dadka soomaaliyeed oo dhan ku tahay qof kastoo soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkani asiga oo 22 sano marna dawlad la'aan ahaay marna dawlad ku meel gaar ah ay ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyay dawladnimadii xamar iyo iskool bulshada ku koobneed inta baahiyay jamhuuriyadda afrikada gees geeyay haddii aanay dawladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaanyada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku yidhahdaa mooska ku gadanayo maxay sugayaan waay war rajo xuma wadaan rajo xumada joojiya wadada aad ku joogtaa wadda saxa ma aha ilaaliya dadka hana wado aad iyo aad u mahadsantihiin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadka xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgelyo ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaana yeelin in muxuu ahay abuse gareeyo oo maxaan ku dhaha dastuur qaynuun la-aan in lagu dhaqo qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeelin marna yaana la yeelin laakiin haddana nabad waxa aan rabnahay nabada ummadaha adduunku waa aragteen cod iyo nabaday wax ku doontaan madaafiic ma ridaan ma isma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahay dhib kuwa argagixisada nabadiidka aan noogu filan colaad kale iyo dagaal kale ma geli karno laakiin codkeennoo midaysanaan ku hor istaagaynaa waxayna dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa talaan ku hor istaagaynaa waddadaan soo istaagaynaa mayaan leenahay mayaan ninkii yidhaahda ma aha inuu dembi galay marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed nabadda soomaaliyeed nabadaan mar walba ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa soomaaliyeed xaqa aad leedahay in ilaasho ha ogolaanin in lagu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaas iyo qaanuunkaas wuxuu xaqa uu ku siinaya ilaasho oo midii maxaan ku ihahdaa diinta islaamka ay kusiisay ilaasho walaqad karramnaa bani aadama ilaahay yaa qur-aankiisa karaamka qawaaniinta oo wadciga aan leenahay dastuurkeenu ugu weyn yahay xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinimo way caddahay adigaa lagaa raba inaa ilaashataan ku sameeyo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum way madaxweyne kismaayo awgeed ayaa loo xirxiray in diyaaraduhu ay baxaan adiga ma ku jirtaa madaxda aadaysa kismaayo maanta ma taagno
kismaayo loo xiray wax ka weyna maanta taagan kismaayo ma qadiyad maanta qadiyad qaran waaye dalka Soomaaliya oo dhan iyo dawladdiisa jiritaankeeda waa su'aasha taagan issue kismaayo ma aha marka yaa lagu mashquulin kismaayo iyo qadaha inta ka dhacay kan iyo qarankii Soomaaliya maanta taagan shirka jaraa'id intaad noogu sheegtay madaxda qaranka ma gaarsiisay wagaakaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id uu qabtay saxaafadda magaalada Muqdisho ugu qabtay waa maasantiin daawadayaal